macalin diridhaba oo halkan waraysi khaas ah igu siiyey ayaa ka dhawaajiyey inuu yahay musharax u taagan shaqada tababaranimo ee xulka qaranka Soomaaliland isagoo sheegay inuu marun sugayay taasi oo himiladiisa kubadda cagta taariikhdiisa ay ka dhiman tahay. Diridhaba ayaa sidoo kale ku daray inuu tartamayo sheegayna haddii laga helo ama dad kale kaga haboon ay yimaadaan oo hambaliyeyn doono. barkayga waxa taagan waa macalin diridhaba wuxuu ka mid yahay macallimiinta ugu waaweyn ee waddanka. macalin dhawaan xiriirka kubadda cagta wuxuu ku dhawaaqay gudidii kala xulay tababarayaasha tababare kasta ama qof kasta oo aqoon u leh xirfadana inuu ku soo xarayn doono muddo kooban ay ku dhawaaqi doonaan tababare xulka qaranka liin laha maadaama ka mid tahay macallimiinta ugu waaweyn ee waddanka muddo 20 sano ana ku soo jiray iminka ciyaartoyda matal soo saarteen ay garoomada ku guuleystaan tababarayaal yihiin gudidaas sidee baad u arkaysay maadaama aad tahay khabiir kubadda cagta dadka ugu aqoonta badan leh kubadda cagta waddanka marka warta Ilaahay baa mahad leh marka inta kadib horta aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland gudida uu magacaabay waana hawlihii kullayba loo egmadoon bay kamid tahay tani waxaan aad iyo aad waxa weeyaan kullayba waxa weeye ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in sportski Soomaaliland maanta uu taabaqaaday iyadoo ay muuqato in dadaalka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland iyo waxa weeye xiriirkuba ay tadawur hor leh ama tadawur wanaagsan ay sameeyeen isla markaana guulihii laga filayay ay waxa weeye ay runtii ay gacanta ku hayaan inta marka laga yimaado su'aashaadii weydiisay runtii waa su'aal kulay waxa weeye su'aal iska caadi ah anigu horta kulay maxamed ahaan dirdhaba ahaan waxa weeye aad iyo aad baan waxa weeye ugu faraxsanahay waxaan filayaa kullayba inaan kamid ahay dadka kullayba iyaguna waxa weeye soo dhaweysan doona kullayba araajidooda waxa weeye geysan doona kullayba qof waliba waxa weeye wixii uu hayo kullayba inuu soo bandhigi doono bay la tahay walow aan kullayba waxa weeye anu aad ugu faraxsanahay marxadda Soomaaliland sportkeeda heerka soo maray heer kala duwan inay ahayd dadka intii waxa weeye xogaalka haydna waxa weeye ay maanta ay dal ku sugan yihiin waana mid waxa weeye taala in lagu tartamo arrin kasta waxa weeye dalka ka dhacaya waxaana filayaa aniga yararka ila midkaaba xaq bay u leeyihiin inay keenaan dokumentigooda gudidana waan filaynaa insha Allah inay kulli si cadaalad ah kulli waxa weeye hawsha u qabsan doonaan taanad ka bixin macallin markii ugu horeysay 2011 bay ahayd la sii xul qaran sameeya koobkii gobolada waqtigaas aad adigu ku guuleystay caqabado noocyada ka hor iman karaya xulka qaranka marka la sameeyo adiga aragtidaada ku muuqatay maadaama khabiir sports tahay horta kullayba waxaan dhicin lagama sii waramo dalku waxa weeye marxalado kala duwan soo maray dhinac walba marka la eego sportkina taas buu la wadaaga wax walba barbilow bay leeyihiin haddii aanu dalku hore u yeelanin xul qaran amaan hore loogu guuleysanin tan maanta haday suurtagal noqoto kulli waa laga yaabaa inay caqabado yimaadaan caqabadaas laakiin waxay noqon doonaan kuwa kulli waxa weeye waarnimo laga qaato iyo waxa weeye wixii arrimaha kaba laga dhaxlay waxaan si filay insha Allah haddii tubteeda loo maro oo sida cadaaladdu tahay loo eego dadka ku guuleystay arrimaha xilka loo magacaabi dadka ku guuleystay ay noqdaan dad daacada oo waxa weeye u hagar baxa waxa weeye bulshadooda iyo dalkooda qarankoodaba in horumar laga gaari karo man qabaano adigu shakhsiyan ma isleedahay shuruudaha wad buuxin kartaa oo aqoon kugu filan waad leedahay tababaro xul qaranna waad noqon kartaa taariikhdaada waa inta ka dhiman kubadda cagta horta arrinkan laga dhawaajiyay shakhsi ahaan maxadirab ahaan in badan baan sugayay ama filayay in marun dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaran yeesho anigana waxa mar walba igu dheerayd ama ku jirtay waxa weeye himiladayda guud saad garan inaan aniguna aan ka mid noqdo xubnaha waxa weeye marun higsan doona in astaanta qaranka iyadoo waxa weeye ay dhiganayaan ama ay dhageysanayaan saadkana kuwa loo qaadi lahaa inaan ka mid noqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddii nasiibkii ay gaarsiino wax labsan haddii kalena cidda ku soo baxda nasiibka ayaan hambalyeyn ugu dambeyn ciyaartoy badan baa jecel marun inaad hogaamiso halkan maanta ka daawanaya dadku badana iyo taageerayaal badan oo aad leedahay shakhsiyan fariinta ugu dambaysa halkan u marinayso kulay waxaan leeyahay insha Allah sports gabigiisa waxa weeye waa arrin waxa weeye furan oo waxa weeye si friendly loo ciyaaro oo loogu dhex jiro ma aha wax dadka kala qoba ama dadka waxa weeye iska horkeena waa la ogyahay taasna waxaan qabaa cid kasta oo waxa weeye sumcadda iyo karaamada bulshada Soomaaliland waxa weeye danaynaysa inay waxa weeye ay ku faraxsan tahay
ciddii loo igmadana hawshaas aanu ku wada garab istaagi doono soo garan aniga haddii chance ilaahay siinaa wasaan haddii kalena cidda ku soo baxday guddida u garto ama shacabku u garto soo garan cidda gacanta ku haysta u gartaan ayaan waxa weeye taageeraynaa lana shaqaynaynaa ugu dambeyn su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayo guddoomiyaha xiriirku uu magacaabi karayay isagu tababaraha oo awood weysiinaysay muu magacaabin guddi buu soo xulay arrinka adigu sidoo arkaysay guddoomiyuhu ku dhirid xaqiiqatan kuleyba arrimo waxaa jira kuleyba la tashi kuleyba u baahan tala kasta iyo arrin kasta u dhawaaqayna ummadda islaamka kuleyba waxa weeye islaamku meel badhigo waxa weeye wax la yidhaha waxa weeye wa amruhum shuuraa baynahum ayaa jirto waxa weeye dee kitaabkeenu qur-aankuna farayo anigu waxaan qabaa inuu waddadii raacay wili la tashi inuu samaynayo guddidani waa la tashi iyo soo bandhigid go-aanka ugu dambeeyana waxa weeye kuleyba guddoomiyaha ayaa iska leh soo garan taasaan filaya inay halkaas uu raacay dariiqii saxda ahana insha allahu inuu ku tagan yahay baan filaya سكرية اسماعيل عمر هرقيسة.